السلام عليكم. إيمانويل ماكرون مدحوينها فرانسيسكا مهم إنه maaha in aynu qof kasta oo liita xoogaa ka bixinaa ee qofkaas aynu carrabaabnay dhowaan hadallo ka soo yeedhay caalamka islaamka oo dhammi wuu ka gilgishay wayna inaga wada cadhaysiiyeen balse hore ayaa loo yidhi timir laf ayaa ku jirta dherigana karka waxa ka keena waa kulaylka ee aynu isweydiino su'aal ah maxaa qofkaas isaga ka cabaadiyey maxaa sababay inuu qayladaas ka wado maxaa sababay inuu xataa maqaamkiisa madaxnimo dhowran waayo oo hadhkaa galay hadalkaas diblomaasiyadda iyo munaafaqadii siyaasadda ka madhan uu dadka isla soo hortaago aynu isla eegno sababaha ka cabaadiyey Faransiiska. sanadkii 1970kii ayuu Faransiisku joojiyey dadka kaga soo qulqulaya deegaanada islaamka ee shaqada ka soo doonanaya dhanka dalkiisa ee weliba ka imanaya deegaanadii uu gumaysan jiray isagoo u arkay inay halis weyn ku yihiin diin ahaan iyo dadnimo ahaanba oo qof kasta oo yimaada uu soo xambaaranayo fikirkii iyo habnololeedkii iyo diintii islaamka. sanadkaasna waxa ay joojiyeen muslimiintaas dalka ku soo qulqulaysay oo u badnaa Algeria waa wadankii ay dadka milyanka qof ka badan ka dileen. waayahaas muslimiinta joogay dalkaasi waxa ay dhammaayeen 4,150,000 oo qof oo 1,550,000 oo ka mid ahi ay ahaayeen Algeria ama dadka u dhashay Jazaa'ir oo isagu gumaysan jiray. markii la soo gaadhay sanadkii 1990kii doorashadii loo dareeray dadkii codeeyay muslimiintu waxay ka ahaayeen 1.2 milyan oo qof. qaraxii sarihii mataanaha ee Mareykanka iyo dagaalka argagixisada ee uu Mareykan hogaaminayay ayay dowladda Faransiisku ka heshay fursad ay cadaadis ku saarto dadka muslimiinta ah ee dalkeedaas ku dhaqan haddana way u liici waayeen muslimiintii. waxaa kaba sii yaabadatay markii daraasadaha ay sameeyeen kooxaha ka baxsan gacanta dowladdu ay caddeeyeen in dadka muslimiinta ee ku dhaqan caalamkaas galbeedku ay yihiin kuwa ugu badan ee waxyaabaha ay ka shakiyaan iyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada la sheegayo la socodsiiyay dowladda halka dadka dhaladka ahina ay afka isku jabsadaan. waxa uu Faransiisku samaystay qaanuun calmaani ah oo waajibinaya in diinta iyo dowladda la kala sooco oo aanay labadaas waxba iska gelin. waxaana uu qaanuunkaasi u damaanad qaadaya dadka muwaadiniinta ahi maadaama uu yahay dal dimuqraadiyad iyo xornimo ku faana inay diimahooda sidooda u wataan si islaamka marnaba aqbalaad uma u yeelan Faransiisku oo dowladdiisu weligeedba dagaal ayay kula jirtay. bal suurayso iyada oo ay ku yaalaan dalka Faransiiska in ka badan 40,000 oo kaniisadood oo Catholic ah 957 macbad oo diimaha kale ah iyo 82 kaniisadood oo Yuhuudda u gaar ahi ayaa laga diiday muslimiintu inay yeeshaan wax ka badan 5 masjid oo shantaasna awood shacab lagu dhisay. waayahana qofka muslimka ah ee jooga Faransiiska waxaa loo raadiyaa eed yar oo xabsiga gunta loogu dhigo heer xaddiga maxaabiista dalkaas ay muslimiintu ka yihiin 50%. waxa uu Faransiisku waxaas oo dhan sameynaya iyada oo waayihii uu gumaysanayay caalamka islaamka uu ku cadaadiyey inay dagaalkii koowaad ee adduunka la galaan oo isaga ka garab dagaalamaan isaguna uu uga kici doono dalalkooda. dagaalkaasna waxaa kaga dhintay muslimiinta in ka badan 100,000 oo nin iyaga oo doonayay inay madax bannaanida dalkooda ka helaan gaalkaas marka ay ka caawiyaan la dagaalanka gaalka kale. sanadkii 2016kii muslimiinta joogta qaaradda Yurub waxay ugu badnaayeen Faransiiska waxaana ay gaadhayeen 25,770,000 oo Faransiiska waxaa keligii joogay 5,720,000 oo muslim isaga ayaana Yurub ugu badnaa. xataa haddii la joojin lahaa dadka muslimiinta ee markaa dibadda kaga imanayay Faransiiska kuwa iyagu jooga ayaa labanlaabkood soo saaraya maadaama ay muslimiintu ubad dhalaan gaaladuna aanay ubad soo saarin. saadaal ay sameeyeen sanadkii 2016kii reer Yurub ayay ku xuseen in 2010kii muslimiinta guud ahaanba qaaradda Yurub ku dhaqani ay ahaayeen 19,500,000 oo qof. 2016kiina ay tirada muslimiintu maraysay muddo 6 sano gudahood ah 25.8 milyan oo qof. sanadka 2050 oo imika 30 sano ka bacdi ahna haddii haba yaraato ee qaaradda Yurub ay soo geli waayaan wax muslimiin oo soo haajiray ay tirada muslimiintu gaadhayso 35.8 milyan oo qof. haddii sidii dabiiciga ahayd ay ugu soo haajiri jireen muslimiintu qaaraddaas Yurub ay ugu soo haajiraanna ay tiradoodu gaadhayso 57.9 milyan sanadka 2050 haddii ay si xawliya oo sidii hore ka badan ugu soo haajiraanna ay tiradoodu gaadhayso sanadkaas 2050 75.6 milyan oo qof. taasi dhibaato uun kuma aha marka dhan laga eego ee waxay ku noqonaysaa masiibo ay ka soo kaban waayaan marka ay muslimiintu Yurubna tiradoodu sidan u korodho. dadka dhaladka ee gaalada iyo diimaha kalena ay hoos u dhacdo maadaama ay dhashooda la dagaalamayaan iyaga laftoodu oo sida ay filayaan. halkii 2010kii tirada dadka aan muslimiinta ahayn guud ahaan ee qaaradda Yurub ku dhaqani dhammaantood ay isku ahaayeen 495.3 milyan oo qof.
waxay saadaalinayaan 2050 oo markaas 40 sano muddo ay u dhaxayso in ay isugu soo ururayaan 463 milyan oo qof. waxa meesha ka baxaya 32 milyan oo qof oo dadka aan muslimiinta ahayn isku wada dar oo halka muslimiintuna ay ka dhaqaaqayaan tirada 19.5 milyan ee ay gaadhayaan 2050 75.6 milyan oo qof. waxa ay korayaan tiro 56 milyan oo qof ka badan Yurub dhexdeeda, halka Yurubna ay waayeyso tirada 32 milyan ee qof qodobka kale ay ka sii naxeen waxa uu yahay inuu dhaboobay saadaashaas u dambeysay ee ay ka fisheen muhaajiriinta muslimiinta inay si xawliya u soo haajirayaan kadib markii ay dumeen dalal badan oo muslimiin oo Suuriya ay koow ka tahay, dadkeediina ay Yurub u dareereen iyada oo Yurub dhammaanteed uu qodobkaasi dhibaato ku wada hayo. ayuu Faransiiskuna si gaar ah uga sii baqaya maadaama uu mar walba yahay ka ugu badan muslimiinta u soo hayaamaysa uguna badan marka loo eego dadka muslimnimada qaadanaya ee diintan islaamka soo gelaya. Faransiiska saadaan lagu sameeyay waxa lagu soo bandhigay in haddii aanu hal qof oo dibadda uga soo jirooday soo galin oo dabcan muslim ahi, tirada muslimiinta jooga ay gaadhayaan 2050 17.4% bulshadiisa guud ahaan. marka ay dadka soo jiroonaya isa soo tarayaan sidaas iminkaba ka jirtana dabcan waad qiyaasi kartaan tiradaasi inta ay gaadhayso. daraasad kale oo ay sameeyeen Faransiisku ayay ku soo bandhigeen inay 2010 ilaa 2016 intii u dhaxaysay qaabileen in ka badan nus milyan muslima oo muhaajiriin dalkan inay degaan doonaya. haddaba waxay imanaysaa su'aasha dhammaanteen niyadeena ka guuxaysa ee haddii ay arkaan muhaajiriintaasi halista ay ku hayaan maxay muslimiinta soo jiroonaysa isaga joojin waayeen. waxa aan maqli jiray waayeelka Soomaaliyeed oo yiraahda Ilaahay marka uu albaab ka xidhaba daaqad ayuu ku furaa. markii muslimiinta dalalkoodii la dumiyay ee ay ka qaxeen waxa ay galeen Yurub, waxay noqdeen wadda shaqaale ee dalkaasi helayo ee ka shaqaysa, waxay noqdeen kuwa dhalaya ubadka uu dalkaasi ku xisaabtamayo ee wax barayo ee la soo baxayo ee ubaxa waxay noqdeen kuwa uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalkaasi ee haddii ay meesha ka baxaan uu dalkaasi dhaqaale burburka ku dhacayo, taas oo sababtay inay noqdaan xadhig go'an dul rasaysan tahay oo Faransiisku uu ka laalaado, sidoo kale Yurub oo dhammaan ay ka laalaado. oo haddii uu Faransiisku jaro xadhigaas oo imaatinkooda uu joojiyo uu xadhigaasi la go'ayo oo dalkaasi dhaqaale ahaan dumayo, haddii uu ku dheganaadana uu isaga oo meel walba go'an ku mudan tahay uu ka laalaado. yacni waa allay baday. dhan kale oo aad moodo badanka inaynan dhaadanayn marka aynu iska taagno qadiyadda qofkaas Macronka lagu sheegayo iyo Trumpkaas dulliga iyo kuwa la midka ahi ay wadaan ee inay ku ladhaan magaca Islaam, magaca kale ee argagixiso. maaha qadiyadu jeedka ugu weyn uu yahay in muslimiinta dalalkooda lagu qabsado ama diintooda lagu nacbaysiiyo, ee waa qadiyad ka qoto dheer oo in muslimiinta laga saaro dareenka jihaatanka ee ficilka iyo iska celinta oo uu samaysmo wax la yiraahdo muslim dhexdhexaad oo muslimiin diinta sidaas ugu adkayn. yacni waa inay muslimiinta ku dhabowdo weedhii ahayd waxaanu nahay ummad Ilaahay ku sharfay islaamka, haddii aanu sharafta meelaan islaamka ahayn ka raadinana Ilaahay wuu na dulaynayaa. waxa ay doonayaan inaynu sharafta ka raadinno, inaynu reer galbeedka iyo adduunka u muujino inaynu nahay dad ilbaxsan oo teenana aynu ka hiyi kacno, toodana aynu gaari weyno, inaynu mar walba isku dayno inaynu maxabadooda iyo ammaantooda hananno. sidoo kale waxa ay doonayaan inaynu ku dhabowdo weedhii ahayd ummadi haddii ay jihaadka iyo wax iska celinta ka tagto dulinimo ayay uga dhaadhacdaa. waxaana ay doonayaan in halkii aynu cisiga iyo karaamada iyo ficilka iyo wax iska celinta iyo inaynu nahay ummad aan loo soo kaadi tegin ka muujin lahayn aynu ka muujino waxaan ay ku sheegaan ilbaxnimada ee inay raggeenuna noqdaan dhalisaclayaal, sida dhexda la isaga xidho iyo sida tayga la isugu rooriyo xariifiin ku calooshuna ay shaqayso caqliguna uu hawl gabo, dumarkeenuna ay noqdaan huwan qaawan sida riyaha jirka inta kalena dhogortu ugu qariso, cawraduna banyaalka uga tahay jirkooda mariyo inta ay qarinayaan in ka badan muujinaya saaraan cawradoodana bannaanka soo dhigaya. muslimka dhexdhexaadka ahi waa in islaamka laga tago oo sidiisa uu yahay aan loo haysan, gaalada iyo halka ay joogaanna aan la gaadhin oo iyaga lala sinmin, yacni if iyo aakhiraba in la seego. kaas ayuu Macron u ololeynayaa. muslimka dhexdhexaadka ee ay doonayaanna waa muslimkaas barxan. dhanka kale Macron waa nin arka dadkiisii oo markii tan iyo kacdoonkii Faransiiska ee 1700 dabayaaqadeedii dhacay lagu soo shubayay xor ayaa tiireen sida doontaan yeela oo dhashii ka tegay oo tarantoodii baaba'aday oo halka uu qofka muslimka ah dhalayo 5 ilaa 10 qof iyagu dhalayo qof ama labo oo duqaysii wada dhimanaysa u batay oo dhalintii ay wiriir ku noqotay. dhalintaasna intaas noole ay habeen iyo maalin isdilayaan oo isqurgoynayaan. iyo dhanka kale muslimiintii uu doonayay dadkiisu inay gumaystaan oo madaxa kaga taagnaadaan oo u arrimiyaan oo ku tuntaan oo intay dalkiisii soo galeen noloshoodu sidii ugu quruxda badneed u socoto, nidaamka nolosha ee toosan haya, tarmaya oo dhalaya, dhilintoodu aanay isdilayn ee si qurxoon ay u nool yihiin
intaasna ay dheer tahay dadkiisi dhaladka ahaa oo markii ay arkeen nolosha wanaagsan ee muslimiinta inta ay la eegeen la indho-indheeyey oo ka mid noqday waddamada ugu soo islaamidda badan. waxaas oo dhan oo isbiirsaday ayaa horseeday inay suuraystaan oo sugaan in 2050 Faransiisku uu noqdo ama ku sigto oo qarka u gaadho jamhuuriyad islaami ah. Faransiisku waa mid ka mid ah waddamada muslimiinta cadaawadaha ugu badan u qaaday deegaanada islaamka ee uu gumaysanayeyna marka laga tago dhaqangedinta uu ku sameeyey, afkooda uu ka dilay iyo waxyaabaha kale ee dhaqan xumada ee uu ku baahiyey. waxa uu mid kasta kaga tegay boqolaal kun iyo malaayiin uu ka dilay iyo dadkii oo uu ka kaxeeyey islaamnimadoodii oo waxay yihiin bays garan waayey. ilaa maantana gumaysi dadban ayuu ku wadaa oo inta dalalkoodii wada fuqaro uu ka dhigay ayuu baday inay isaga wada hoos joogaan. ummaddii cadaawadda ay dowladdaas u hayso ay sidaas ugu gelaysay oo dadkoodii taabiceen oo qaateen diintoodii ayuu arkay, waxaana uu dareemay in gudkiisi ay biyo ugu soo galeen Macronkaasi. taas ayaana ka cabaadisay. wargaalo waxay u midowday gumaysiga iyo colaadinta muslimiinta. haddana islaamku waxa uu noqday diinta ugu koritaanka badan adduunka ee dad qaataan. waxa uu noqday ummadda ugu farxadda iyo deganaanta badan, iyagoo haddana dalalkoodu ay yihiin qaar ka mid ah kuwa iyaga ugu liita xaalad dhaqaale ahaan, xaalad maciishad ahaan, xaalad xasilooni ahaan iyo xaalad horumar ahaanba. ku bishaaraysta qaaradda Yurub oo marba markay ka dambaysa dhanka islaamnimada u sii siqaysa. xogahana aynu isla wadaagnay oo dhanna waxaad ugu laaban kartaan linkiyada aanu idiin dhignay description-ka. wassalaamu calaykum.